guusha kuma imin maartay waxa weyn marka xiriirka kubadda cagta wax politik baan dejiyay inaan ciyaaraha hoosta ka soo bilaabano maanta waxaa leenahay xil qaran oo maartay 12 jir ka yar 13 jir ka yar 15 jir ka yar 7 jir ka yar 20 jir ka yar baan kuwan maanta jooga seniorka ciyaar inta u badan waxa ay xulkii qaranka ee 7 jirka ka yar ee berigii Qatar ka qayb galay waxa intaan ugu soo birtay muddo todoba ka hor coach Francis oo yeeray oo khibrad leh suuciyalka gacanta ugu qaban lahaa wax badan buu ka bedelay wuxuu ku soo daray shaqadii professionalism ku soo daray soo ciyaariyeen discipline taraanka wax badan buu ka bedelay kolka waxa halka isbedelkii baan ayaan aragnay ciyaar wanaagga soo bandhigeen oo maanta halkii ka soo waday ciyaartii Djibouti ku ciyaareen way ka badiyeen markii ugu horeysay taariikhda waddankeena waa ku maartay mashniilkeena dibadda ku keenay waxa weyn horto mid weyn la ogaado imika waxa ka soo dhacayna waa wadannada weynaa Senegal iyo Maroc iyo Egypt wadannadaas waxa leeyihiin ciyaartoy professional waxa xil caalami wax ka ciyaar waddanka way yartaaba annakana ciyaartoy kaliya tama waxa kale oo dhan Djibouti ka ciyaaraan laakiin waxaan aaminsanahay inaan natiijo fiican groupta wuxuu kaga fiican yahay lix ciyaarood baa ciyaaraysa 3 Djibouti iyo 3 dibadda waxa badan kartaa labo mid baa laga badan karaa mid baa barbardhac kala jirta insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan natiijo fiican ka keeni doono oo meel fiican ka soo gali doono dollar waxa noo qarsoon waxa weyn ma imika Qatar bay tagi doonaan si isku soo diyaariyaan ciyaarta bisha 9-kiiga ay isku soo diyaaraan 13-kiina haddana Gambia ku soo ciyaari doonaa de hadda tobanaa isku diyaarino taa afkoonka iyo insha Allah taa World Cup-ka saan natiijo fiican u gaarsiin lahaa wana de preparation ugu fiicnaa standardka aan u sameeyno insha Allah saan natiijooyinka ugu keenna ciyaaraha soo socda waxa weyn markaan xiriirka kubadda cagta waxaan barnaamijyada ugu waaweyn rukumaha ugu weyn waxa kamid ah horumarinta kubadda cagta hablaha ayagana hoostaan ka soo bilownay markii ugu horeysay sanadda ma sameeyay xul senior oo hablaha kii hoosta ka soo bilaa yaa soo weynaaday de senior bay baadeen kolka maanta de heer kale u gudbeen de saa heerka loo jaan qaadno waxaan garanay inaan koox caalami oo yeerno waxaan soo helay gabadhan oo haan jirtay ciyaartooy professional oo national xulka Faransiiska soo ciyaartay oo antreneerka tababaraha Montpellier ahayd oo khibrad aad diblomka ugu sareeyay Europe haysata ayaan soo xulanay sidii imika halkii aan sabla soo gaarsiinay inuu sii qaaday meel fiican u gaarsiinay insha Allah waxa weyn maanta anaku intii talkii waan soo wadnay meel fiican baan soo gaarsiinay waxaan ka codsanayaa baqduriga dhammaan maalgayaasha maanta Djibouti iyo ku kale maartay caalamiga insha Allah inay arinta ay nala qabtaan bas waxa weyn kubaddu Maaliyad meel ma gaadho inay intoodii ka qaataan ay insha Allah dhalinyarada meel fiican u gaarsiin lahaa ay kuna garab